Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada xaqiiqooyin ku saabsan dalka Tunisia. Tunisia waxay ku taallaa waqooyiga qaaradda Afrika. Dhanka waqooyi iyo bariba waxaa ka xiga Badda Dhexe. Dhinaca galbeed waxa uu xuduud kala wadaagaa waddanka Aljeeriya. Waqooyi galbeedna waxaa ka xiga waddanka Liibiya. Baaxadda dalka Tunisia waxaa lagu qiyaasaa wax ka badan 100,000 kiiloomitir iskuweer. Boqolkiiba 30 dhulka Tunisia waa Sahara. Dadka ku nool Tunisia waxaa lagu qiyaasaa wax ka badan 11 milyan. Tirada dadka reer Tunisi waxay u dhigantaa boqolkiiba 15 tirada guud ee bulshada adduunka. Caasimadda dalku waa Tunis, waana magaalada ugu dadka badan ee dalkaas. Waxaa lagu qiyaasaa tirada dadka ku nool caasimadda wax ka badan 2 milyan oo qof, taa oo ka dhigaysa inay tahay magaalada saddexaad ee ugu dadka badan gobollada Maghrib. Waxaana ka dad badan oo keliya caasimadda dalka Morocco ee Casablanca iyo caasimadda dalka Algeria ee Algiers. Sidoo kale waa magaalada 16aad ee ugu weyn dunida Carabta. Islaamku waxa uu soo gaaray waddankan qarnigii 7aad. Kadib waxa ay ka dhiseen magaalada caanka ee lagu magacaabo Qirwan, waana magaaladii ugu horeysay ee Islaamiya ee lagu dhiso waqooyiga Afrika. Waddankan waxaa gumaysay Faransiiska. Gumaysiga Faransiisku waxa uu bilaabmay sanadkii 1981 waxaana uu qaatay xornimadiisii sanadkii 1957. Madaxweynihii ugu horreeyay Tunisia yeelato waxa uu ahaa Habib Bourguiba. Waxa uu xukunka hayay ilaa 1987 markaas uu xukunka iska wareejiyay sababo caafimaad awgeed. Waxaa markaas kadib talada qabtay Zaynul Caabidiin bin Cali oo hayay talada ilaa shacabku ay kacdoon kaga rideen bilowgii 2011. Madaxweynaha hadda waa Kais Saied, waana madaxweynihii shanaad ee dalka soo mara. Dhaqaalaha dalka waxa uu ku tiirsan yahay beeraha, dalxiiska, qodista dhuxusha iyo farsamooyinka fudud. Luqadaha lagaga hadla waa Carabi iyo Faransiis. Waxbarashada waddanka Tunisia waa mid heer sare waana bilaash ama lacag la'aan, oo kuwa dawli ayaa u badan, kuwa private-na way jiraan. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe, share, lana wadaag asxaabtaada si ay kula faa'iidaystaan videogan. Wassalaamu calaykum.